marka rulkani wuxuuna leeyahay boqolkiiba 50 needskaaga waa waxyaalaha asaasiyaadka ah u qoonde boqolkiiba 30 waxaad u qoondaysaa waxyaalaha ka maarmi karayso boqolkiiba 20 waxaad u qoondaysaa deynta iyo dhigaalka marka waad dhaafi kartaa halkan boqolkiiba 30 waxaad ka dhigi kartaa deynta iyo dhigaalka boqolkiiba 20 waxaad ka dhigi kartaa wantska yani inaad dariibsato inaad yani wax kale oo ka maarmi karayso wax weeyaan aad iibsato amba wax weeyaan aad ku kharash karayso way haddaba markaad doonaysid shay yani wantska lamid ah wantska yani wax weeyaan inaad gaadhiisto kale waad ka maarmi kartaa marka qaabkaad u qiimeynayso shaygaad lacagta ku bixinaysaa ha ahaado qaab caqli ku dhisan oo tusaale weyn isweydiisaa waxay roy yani waxa loo soo gaabsaday waa return an investment on investment maxay kaga soo noqonaya waa shayga markaad wax geliso ama aad magaranaysaa wax ku kharash garayso dib kugu soo celinaya lacag tusaalahaan oo kale haddii aad caafimaadkaaga hadaad medical check up fiican marto ama aad iibsato waxyaalo saacidaya caafimaad ahaan wuxuu kugu soo celinaya waa in caafimaadkaagii yani shakhsiga ahaa oo aad u kobco ka caafimaadkaagii buu kugu soo celinaya in wanaagsanaado haddii tusaale ahaan oo kale aad ganacsi kala furato ama ganacsi yar furato ama aad wax ku darsato share ku darsato ganacsi isna wuxuu kugu soo celinaya dakhli kale kugu soo celinaya inuu kusoo galo marka dadku inta badan tan isma weydiiyaan shay kasta shayga kaga soo noqonaya tusaale ahaan kale haddii doorkan aad dariibsato maxaa kaaga soo noqon karaya okay dar mase u baahan tahay weli su'aalo badan isku weydiin kartaa shayga iibsanayso marka laga imaado needska oo noqonaysa credit guriga noqonaysa allahumma salli ala maxamed shidaalkii tusaale ahaan kale baabuurkaaga noqonaysa oo kale waxa weeyaan caruurta waxbarashadooda ama waxbarashadaada layrkii noqonaysa dhammaan waxyaalahaas noqonaysa marka return on investment-ku waa shay kasta oo inaad ka qiimeyso wuxuu kugu soo celinaya maxaa kaaga soo noqonaya tusaale ahaan kale haddaad iiga casuumayso marka dadka kale laga eegayo oo in sababta qofkan hadii casuumto maxaa kaaga soo noqon kara yani casuumad kama hadlayo in case aad waqti la qaadato haddii qofkaas qof wanaagsan yahay waxyaalo badan baa kaaga soo noqon kara wax laga yaabo qofkan dan ka leedahay hawlad ka dhamaysanayso hawshaad ka dhamaysanayso marka waqtigaaga aad ku bixisay waxa kaaga soo noqday muxuu noqonayaa waa wax adiga ku faa'iido haddii aanu faa'iido ku lahayn noqonayo cidda aad la kulmaysa waxa negative inaad kala kulmayso ama waxa wanaagsan ama waqtigaaga already uu sheekoon ku dhamaanayo return on investment kiisu waa zero yani waxba kaaga soo noqonayo marka shay kastood iibsanayso oo wax ku bixinayso waa inaad isweydiisaa maxaa kaaga soo noqonaya qodobka labaadna wuxuu noqonayaa waxaad ogaataan marka wax la iibsanayo ama wax la kharash gareynayo lacagtu waxay nooga baxdaa qaab aynaan dareensanayn maxaynan u dareensanayn emotionkeena ku xidhantay imika waxaa laga yaabaa haddaad dib u sheegrayso lacagta zaadkaaga dirtay ama lacagahan kale telefoonkaaga ka dirtay inta ugu badan waxaa laga yaabaa inay noqoto waxyaalo shaxaada oo cid kale soo shaxaaday waxaa laga yaabaa inay noqdaan cuntooyin aad hoteela fadhiisato cuntooyin qaaliya cuntay adigoo cuntadii guriga cuni karayay already oo kaba maarmi karayay inaad habeen kasta yacnihi aad suuq wax ka cunto marka emotion bay inta badan la tacalluqdaa markaynu wax iibsanayno maxay sidoo la tacalluqdaa emotion waa laba dhinac inaad dadka iska dhaadhicinayso tusaale ahaan oo kale oo aad dad dartood aad u nooshay dadka daraadood u labisato dadka daraadood hoteela qaaliya u fadhiisato cuntooyin qaaliya u magaranaysaa cunto wax qaaliya u iibsato taasoo already wax alla wax noloshaada kusoo celinayso burburahayn aanay magaranayso aanay kusoo kordhinaynin talabaadna waxa weeyaan kama fikirno shayban iska arkaynaa un iska jeclaan already sheegan iibsana dadna iska iibsana isma weydiinayna baa maxaa kaaga soo noqonaya marka waa in emotionkaaga aad maarayn karaysaa si kale marka laga hadlayo waxa laga yaabaa in qofku soo shaxaado waxa uu ku weydiinaya aanu ahayn wax muhiim ah aanu ahayn oo yacnihi uu yahay wax isaga laftiisa wax iska wants ah oonu needs ahayn then maxaa dhacaysa waxa laga yaabaa inaad lacagta u dirto marka inta badan waxa lagu leeyahay waa inaad kelmadda baran kartaa maya yani maya haddaan oran karaynin lacagtaadaasi way ku daysay waxaanay u bixi doontaa si aanad filanaynin filashada kadibna waxay qoomamun baa ku xigi doontaa inaad iska qoomamayso maalmaha adag already marto dadkan marka laga yoolna Soomaalidu wadka kaliya tii akhir shaharka kala wax leedahay oo akhir shaharka muxuu noqonayaa waa in bisha yani waxaad u fiirsataa 10 maalmood bisha ugu horeeya waxa suuqa lagu jira si qeyr caadi ah 10 dhexe waa iska 50% 10 dambe way adag tahay in suuqa la galo waayo beerka dhulka lagu wada hayaa kuwa wax weey shaqooyin ka shaqeynaya kuwa waxba haysan wasay marka sababaha ugu wacan waxa weeyaan waa personal financing kan yaqoonin amba personal budgeting inay yacni budget gareystaan oo ay waxa weeyaan qiimeeyaan waxa ku baxaya salaana wax laga yaabaa family inaanu aqoonba oo yacni ahayn baqo yacni cid garanaysa waxa ku baxaya family-han amba qofka aanu aqoon waxa ku baxaya si gaar ah haddaad maanta isku weydiiso aniga laftiga su'aal ku weydiiyaa bishii lacagtaada ugu badan halkee ku baxdaa amba bishii sidee baad lacagtaada ugu expense garaysaa ugu kharash garaysaa waxa laga yaabaa inaanad si waadix ah u garanaynin marka shayga ugu horeeya inaad isweydiisaa
waxay tahay in aad samayso waxa la dhahaa personal budgetingka inaad budget garayso bishii maxaa kugu baxaya oo saddexdaa qaybooda maxaad save garaysan kartaa maxaanad ka maarmi karin iyo maxaad ka maarmi kartaa simple waxaa laga yaabaa tusaalahaan kale inaad habeen kasta inaad suuqa cunto ka maarmi karto guriga yacni ku samaysan karto amba wax yaroo jaban soo iibsan karto hal mar deetna aad guriga ku samaysan karto amba guriga lagugu samayn karayo simple laakiin inaad habeen kasta intaad baxdo aad expect garaysan lacag ood kharash garaysan lacag dee waxa weeyaan dhanka kale caqabad bay ku noqonaysaa amba aad iibsato waxyaalo mar walbaan yani faa'iido ku lahayn roy aan ahayn return on investment yani aanay waxba kaaga soo noqonayn oonad kaba fikrinba waxaad iibsato amba yani shaxaadka aad bixiso amba si kale marka la eegayo aanad aqoonin kelmadda maya waay qaab noociyeen marka haddaba tallaabada ugu horreysay tahay inaad marka imika qaadda maxay tahay tallaabada ugu horreysa waa inaad samayso expense tracking waxa la dhahdo expense tracking waxa weeyaan waa in aad dib u daba gasho dhacdo bishii ku soo dhaaftay oo kale imika bishii bilatay maaha bishii hore maxaad ku bixisay lacagtaadii ugu badneed xagee tagtay ma waxay wax kaaga soo noqonayaan bay u tagtay ma waxba yani ma waxay kaaga baxday cunto iyo wax weeyaan cabitaan ma shaxaad bay kaaga baxday ma waxay kaaga baxday wants keliyaad waxaad ka maarmi karto dhar qaaliyaad iibsatay cuntooyin qaaliyaad cunto hoteelo kala duwan baad fadhiisatay like inaad isweydiiso track garayso dib wax weeyaan u eegto oo dabagal ku samayso bil kasta lacagta wax weeyaan magaranaysa kaa baxaysa halkay kaaga baxday oo badan marka waxaad ogaan doontaa lacagtaada ugu badan halkay ku baxday simple qodobka labaad waxa weeyaan noolow jeebkaaga noolow kharashka ku soo gelaya waa inaad ku dheelitiri karaysaa noloshaada tusaale waxa laga yaabaa qofku inuu magaranaysa xaas leeyahay kaa labadii qof isguursaday waxaa laga yaabaa qofku inay bishii kale $500 soo gasho den waxay gelayaan guri $300 amba $400 tan gebigii lacag soo haraysaa maxay tahay tebo waxaan 150 200 aan ahayn amba 150 ma laga yaabaa inay noqoto tirada ay noqoto iyagu waxay ka fikirayaan gurigan weyn laakiin la yiraahdo guri weyn bay yani garanaysa Google qaali iibsadeen wax alaab qaali iibsadeen all that things waa waxay dadka iskeegayaan isleeyihiin in hal aynin waxa si sameeyay laakiin iyaga dan ma aha tusaale marka in magaranaysa labada qof amba qofku ku fikra amba ay ka fikireen dantooda iyo waxa ay dantooda jeebkooda noolaadaan waa shay lagama maarmaan marka la taagan yahay waxa la personal financing yani barashada inaad maarayso dakhliga soo galaya iyo kharashaadka qaabka aad u bixinaysaana waa shay aad muhiim ah inaad labadan qodob isku dheelitirto waxa ka baxaya iyo waxa ku soo galaya way waxaan isweydiinaynaa haddaba qaab nooceeya ayaaba kharashaadka laftigiisa u yar kordhin karayna haddaanu kharashaad jirin waxaan samayn karaynaa halka ma isaafin karaynaa waa inaad ka fikiri kartaa qaab aad yani ganacsi yaroo kale ku samayn karto yani alaabo aad ku iibin karto tusaalahaan kale online aad ku darsan karto share cid kale haddii aad go'aan waqti haynaad cid kale inta lacag ku darsataa tirado already ganacsiga yani magaranaysa aynu wada bilowno deetana qof waqti hayo already aad u dhiibto amba adiga laftigaaga intaad meel yar furto oona kharash badan ku baxayna small business deetana aad cid dhiibto dan muxuu noqon doonaa waxaasi side hustle buu noqon doonaa inta ugu badan marka family-ga la joogo waxyaalaha ugu dhibaatada badan leh waxa weeyaan waa biilka joogtada haddii aad meel iska saarto waxa weeyaan wax badan baa ku safroobi karaya yani biilka joogtadii wuxuu burburiyaa يعني هي دقاله بربرية أو واحد مرة والله يعني ده وفرنا لدريمين أو باهيس يعني صنع ونص مركب لبت فبا ونسينا يا ده حاصلة هاي وحويا نات أنبا يعني كبرت هاي حاصلة ونذو فريسة هذه يقف عند رش وده جسد تقولي جوده الذي ده هو إن قيميسان محابشين وبحر بيش واحد نكون بحر مركب جاي ماتو هتفيدين سان محان نيرس محان وبحر هاي بقول إن نلوشن كمر مين بينه محان سك كمر مكرنا محان سه waxweyn qolobka saddexaadna aynu safe connection kana dhigan karnaa way safety-ga waxaad dhigato tusaalahan kale laba qaab oo dhigan kartaa inaad hagbad ku gasho iyo inaad bankiga dhigato weli inaad hagbad ku gasho haddii aad rajo leedahay inaad ku iibsato wax kale oo tusaalahan kale ganacsi inaad ku bilaabato amba intaad gaari ku iibso gaarigaas noqdo wax lacag soo saara idina aad muhiim ah waxa jirta halkan marka la taagan yahay waxa jira liability asset waxa la marka la taagan yahay economics-ka liability-ga iyo asset waxa ku kala duwan asset-ku waa wax kasta oo jeebkaaga lacag soo geliya liability-guna wax kasta oo jeebkaaga lacag saara tusaale haddaad gaari iibsato gaariga kirayso waxa weeyaan waa asset macnaheedu waa maxay lacag buu jeebkaaga soo gelinaya waad kirayso lacag baad ka samaynaysaa laakiin haddaad ku xaragoonayso liability shidaal buu kaaga baahan yahay hagaajin bilaa buu kaaga baahan yahay shil buu geli karaa waxa laga yaabaa inaad shil gasho lacag dheeraad baad bixiso already oo aad ku talagelin bishaas marka liability-gaas kaliftooda inayna kala baranaa
aad bay iyaduna muhiim u tahay wax kastoo jeebkeena ka saaraya waxa weeyaan lacag muxuu noqonayaa liability wax kastoo jeebkeena lacag soo gelinayana asset buu noqonaya ka in kuwana aynu ku dadaalo soolaan markaa hagbada haddii aad degdeg u doonaysa inaad gaadhiibsato amba aad ganacsi ku samaysto waa shay aad kugu muhiima digaalka faraha badan la sameeyaa iyadana mararka qaarkood ma wanaagsana marna way wanaagsantahay si way wanaagsantahay emergency fund waxa la yidhahdaa jira oo haddii degdeg oo kale aad u xanuunsato amba cid familka u xanuunsato amba lacag degdega loo baahdo inaad heli karayso meel aad ku ciyaarsato waayo inta badan familiyada soomaalida waynu aragnay ma laha emergency fund ma laha oo waxa weeyaan reerunba si guud looga soo ururiya laakiin reer la emergency fund aad bay u yar tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa akhiiran laba qodob oo aad muhiim u ah labada qodob waxay noqonayaan waa in qodobka koowaad aad maskaxdaada u diyaarisaa ood ku tababartaa inay maarayso dakhliga yacni lacagta kusoo gelaysa oy macnaheedu tahay haddii dakhligaaga aad maarayn kari weydo waxaad ogaataa inaad dulsaarun cid kale ku ahaan doonto dadyoga inta badan shaxaadka bartaa maaha dad bilaa camaluna laakiin waxaa ku jiri kara dad badan oo shaqeeya dadyoga inta badan qaata amaahaha waxa weeyaan iyaga laftigooduna waxa weeyaan waa dad shaqeeya majority of them marka la eegayo marka inaad labadaaba iska maarayn karto inaad shaxaad aad magaranaysa cid shaxaado waxaa kaa badbaadin karaya inaad si fiican uga fikirto dakhliga kusoo gelaya sidaad u kharash garaynayso talabaadna waxay noqonaysaa inaad amaahaha iska ilaaliso aan muhiimka ahayn oo amaahaha haddii qaarna waa qaar faa'iido leh oo haddaad business oo kale ku bilaabayso dee faa'iiday leedahay businessuna aad aqoontiisii looda si fiican u daristay haddii aad magaranaysaa wax kale ku qabanaysana iyada laftigeedna halis bay kuu keeni kartaa marka iyada laftigeedna aad uga fikirto marka qodobka koobaad waxa weeyaan emotionkaaga yacnihii waxa weeyaan dareenkaaga la tacalluqa lacagta iyo lacag samaynta iyo lacag yacni bixinta waynaad kobcisaa caqli ku dartaa lacag kastoo kaa baxaysa waanaad ku xisaabtantaa dadka waxa laga yaabaa inay ku dhahdaan waa bakhayl laakiin bakhaylnimo maaha waxa weeyaan noloshaada dee waad dareemi karaysaa inaad cid wax weydiiso ma haya lagu idhaahdo waa kelmadda ugu foosha xun leed maqli karto inaad intaad qof wax bidood weydiiso ma haya deetana lagu amba lagu dhaha qofkaas wuu shaxaad badan yahay amba cid kale inaad wax weydiiso cidda doontaa rabto familygaaga aad amba saxaabtaada marka taasi kaa badbaadinaysaa inaad adiga laftigaagu aad dee barya tagto waxa kale kaa badbaadinaysaa waxa ku siinaysaa fursad aad dakhliga dheeraada ku samayn karayso amba ku noolaan karaysa nolol financially yari stable oo dee haddaad yacni lacagtaada aanay kugu filayn waa iska cadaabta ifka waan dareemi karaynaa familiya badan inay ku burburaan dhanka marka la eegayana dad badan stresska ka qadaan ba ay shaqooyinkooda mararka qaarkood uga tagaan garan waayaanba lacagtana meelay ku socoto qodobka labaadna waxa uu noqonayaa in si fiican aad u barato aqoonta maaraynta lacagta amba dakhliga yacni kusoo gelaya waayo personal financing waa waxaan lagu dhiganay jaamacadaha iyo iskuulaadka iyo goobaha yacni waxbarashada laakiin bugaag baad akhrii kartaa tababarad ka qayb geli kartaa waxaad samaysan kartaa qof la taliyo kaala taliya ka labada qodobo laba qodobo aad iyo aad muhiim idinku ah oo ina anfici karaya wixii su'aalaha idinka idiin diinaya insha allah weydiin doonaa